ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan shan ruux oo ku eedeysnaa ka ganacsiga maandooriyaha iyo waxyaabihii ay ka ganacsanayeen kadib howlgallada ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo maadaama maandooriyuhu uu qayb ka yahay waxyaabaha fududeeya falalka amniga lagu xarqaladaynayo howlgalkan oo ahaa mid ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka gulwada ee xasilinta gobolka Mudug ayaa shakhsiyaadkii lagu soo qabtay iyo agabkiiba waxa si rasmi ah saaka loogu wareejiyay ciidamada booliiska federaalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Mudug taliye ku-xigeenka qaybta booliiska federaalka ee gobolka Mudug gaashaanle dhexe Maxamuud Cilmi Gulaafe ayaana warbaahinta qaranka uga warbixiyay howlgalka iyo saameynta maandooriyuhu ku leeyahay shaqada ciidanka amniga qaranku ay ku sugayaan ammaanka magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxa la soo qabtay hamiin hore dhalinyarada halka taagan oo hogaaminayo Cabdifataax Cabdullaahi Salaad Ali Umar Alasow Munir Ahmed Saciid Xasan Maxamed Maxamuud Ali Samey Sigo waxa soo qabtay ciidanka ururka nabadgelyada gobolka Mudug ee militariga oo degan amniga bartamaha ka shaqeeya gobolka Mudug oo ciidankaas oo ciidanka federaalka Soomaaliya ee askartoodii iyo saraakiishoodii bay halka taagan yihiin wixii ay ku soo qabteen waxa halkan yaalo waa kullaani xashiishada iyo waxaan garanayaa iyo dhalooyinka khamrada iyo wax kale oo aad u tiro badan oo waxyaabaha calaqa la kariyo lagu kariyo ah waxaas oo ummadda dhibaato ku hayay ayaga naftooda dhibaato ku hayay ayagoon ogay gobolka nabadgelyo darro ku hayay ilaahay baa mahadle waxaan uga mahad celinaynaa ciidankii shaqada qabtay saraakiishii shaqada qabatay iyo amnigii ay maaragtay ka shaqaynayeen iyo waajibaadkii qaran oo ay guteen ilaahay baa mahadle baan uga mahad celinaynaa raggan eedaysanayaasha oo halkan la keenay waxa la geynayaa maxkamadda horteeda marag muujinta ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo